kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka magaalada muqdisho waxaa ka socda howlgalla ay ciidamada nabad sugidda ee dowladda soomaaliya hub uga ururinayaan dad isugu jira siyaasiyiin iyo weliba ganacsato oo ay dowladdu sheegtay inay hub sharci darraa magaalada ku dhex haystaan howlgalladan ayaa ciidankani ay hub badan ku soo qabteen waxaana dhinaca kale uu dadka muqdisho ka dhex dheliyey dareen iyadoo dadka qaarkood ay soo dhoweeyeen halka kuwo kalena ay ku macneeyeen in siyaasad looga dalnan yahay haddaba barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa howlgallada hubka dhigista ah ee dowladda soomaaliya ay ka wada magaalada muqdisho barnaamijka waxaa ka qayb gelaya oo arrimahaasi falanqaynaya qaasim axmed rooble afhayeenka hay-adaha amniga ee soomaaliya oo magaalada muqdisho ku sugan xuseen carab ciise oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya madaxna waa guddiga amniga ee baarlamaanka oo isaguna magaalada muqdisho ku sugan cabdi nuure siyaad oo ka mid a hogaamiyaashii muqdisho oo isaguna ku sugan gurceel iyo xasan sheekh cali nuur oo isaguna ah aqoon-yahan ku sugan magaalada muqdisho su-aasha ugu horreysa ee barnaamijkana waxaan u bandhigay afhayeenka hay-adaha amniga qaasim axmed rooblo anigoo ugu horreyn weydiiyey bal sida ay ku socdaan howlgallada hubka dhigista ee ay ciidamada nabad sugidda soomaaliya ka wadaan magaalada muqdisho cabdicasiis adiga iyo asxaabta kulligii waa idin salaamay arrinta nabadgelyada ku saabsan hub aruuriska ah waa arrin dawladdu ay wado weeye waa arrin amniga lagu xaqiijinayo waa arrin aan qof gooniya ku salaysnayn waa arrin aan qof gooniya oo dan laga leeyahay ahayn waa arrin guud weeye waa arrin dawladdu ay go-aansatay in hubka lagu qaado arrintaas ayada ahayna nabad sugiddana ku khaas ma aha ciidanka nabadgelyada oo dhan baa ku jira ciidanka oo dhan baa ku jira amisom baa ku jirta arrintaasna nabadgelyada lagu xaqiijinayaa qof ay gooni ku tahay iyo qof kale midna ujeeda laga leeyahay ma jirto arrin sidaas weeye ilaa iyo hadeertaan inta la sameeyeyna waa lagu guulaystay 99% waa lagu guulaystay waana ay soconaysaa waana la wadayaa waana arrin dawladdu ay wado oo nabadgelyada lagu xaqiijinayo waa tahay qaasim waxaad tiri howlgalladan way sii soconayaan sidaan la soconnana howlgalladan waxaad ku bartilmaameedsanaysaan shakhsiyaad gaara oo magaalada ku sugan maxaad dadkan ku tuhunteen oo ay sameeyeen arrintu waxa weeye arrin nabadgelyada la xiriirta arrin nabadgelyada lagu xaqiijinayo dan kalena ma jirto wax kalena ma jiraan sidaasayna ku bilaabatay sidaasayna ku soconaysa haddii lahaydna marka waxaad leedahay ma jirto siyaasad qarsoodiya oo howlgalladan aada uga dal leedihiin maya wax qarsoon oo dad gooniyu ka dambeeyo ama wax gooniya laga wado ama qof gooniya loogu socdo mid maaha waad mahadsantahay qaasim aan kugu soo noqonayaa khadka taleefonka ee dhinaca gurceelna waxaa ku jira cabdi nuure siyaad oo ka mid ahaa hogaamiyaashii kooxaha muqdisho cabdi waxaad ka mid ahayd dadka la raadinayo dowladda soomaaliya ay magaalada muqdisho ka baadigoobaysay oo dhowaana iskuday la doonaya in lagu qabto ma suuro gelin haatan waxaad ku sugan tahay gurceel dadku waxay isweydiinayaan iyadoo dowladdu ay kaa baadigoobayso magaalada muqdisho bal goorta aad gurceel gaadhay iyo sidaad gurceel ku gaadhay adiga meeshaan waxaan ka soo tegay diyaaraddu waxay timaadaa arbacada midda beledweynena waxay timaadaa talaadada markii diyaaradii talaadada beledweyne ayaan kasoo raacay muqdisho ayadaan sidaas baan gurceel kusoo gaaray waxaa kusoo haray nin dadka hadee ma iyo qof iska socda dadka waxa weeye dadku in maaragtay soomaalida ahu dareen wadaniyadeed baa ku jira anigana waxa igubaya oo xanuujinaya war dalkanaga iyo dadkanaga aanu naxno midnimadanaga iyo wadajirkanaga aan ilaalsano intaas weeye waxaan ku eedoobay taas bayna qof kasta intay igu tixgeliyey ayaa aeroboortka markaan teleefon usoo dirsaday oo aan raggi u sheegay inaan rabo inaan meeshaas aado ayaa intaasoo nin oo midba mid kale uusan ogeyn ayay gacanta intay ka qabteen diyaaradda gudaheeda ay geliyeen sidaan la soconna cabdiyow garoonka waxaa iyaguna maamula oo ilaaliya ciidamada amisom marka ciidamada amisom iyo dowladduna way isla shaqeeyaan marka siday kuugu suuro gashay ciidamada amisom iyo ciidankii dowladda oo iyaguba adiga ku raadinayay inaad kasoo dhex baxdid oo aad si caadiya garoonkii u timaadid oo diyaarad uga soo raacdid ciidamada
maamulka hoose Soomaalida waxa weeyo korkaas bay ka ilaalsadaan gudaha uma faragashadaan qof Soomaaliyana ma qabtaan dadka Soomaalida aeroboortka qofkii markaas aan qori jirin aan dib wadan askariga iyo shacabkuna waa isugu mid oo isku sibay ula dhaqmaan ninka askariga iyo ninka shacabka Soomaalidoodan marka aeroboortka martida ka tahayba marka sidaas martida ka aatay ayagoo sidaas ugu dareenkaasi dadka ku wada jiro oo saas ka xanuunsanaya qof kastaba waxa uu suurta galiyay inay maaragtay arrintaas isoo gudbin dadku waqti gaabanna way ahayno markii aan aeroboortkaba imid kuma aana daahdaahil isla markiiba diyaaradda dhex fadhiistay anoo diyaaradda dhex fadhiyay intii diyaaraddu ka ayso dadka la soo saarayay keligayda diyaaradda ku jiray sidaas bay marka igu suurta gashay waatay marka cabdiyow muqdishaad ka baxsatay imika gurceel baad joogtaa siday kula muuqdaan howlgalladan hubka dhigista ee ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka wadaan magaalada Muqdisho ee dabcan adigana aad ka mid tahay dadka lagu bartilmaameedsanayay waxa weeye qof kasta oo wax cadaalad darro ah taageera qaarka ugu dambeeya qofka ka shanlaayo ugu dambeeyo noqda waxa la yiri shanlaygu maahan qofka ugu horeeya waa qofka ugu dambeeya waxa weeye waxaan rabaa inaan ogeysiiyo horta sideedaba ciidamadii booliiska la oran jiray oo qaasin uu leeyahay waa matala stationada iska joogaan qoryo ma haystaan wax ma qabtaan dhowr nin oo saraakiil ah meelaha socota ciidanka ruuxaanta la yiraahdo kooxda siyaasiyiinta ah oo daan jadiid la yiraahdo iska leeyihiin oo ruuxaanta la yiraahdo waxa dadka hubka ka dhigayo dadka laynaya oo dadka dilaya oo si dadban iyo si toos ah u shaqaynaya waxa weeye qaasimna wuu og yahay dalkan inaan muddo dheer joogno ka warqabno dadka ogaan karno wax fuliya dadka xildhibaanada ah oo la dilayay iyo dadka la leynayay hadeer meel aan xor ku ahay oo ku hadli karaan joogaa markii hore laakiin shaki baan ku jiray oo waxaan islahaan Muqdisho hadaa sidaas ku tiraahdo ani soomna hada waa la iska soo kaxaystaa oo soo baxa la yiraahdaa oo waxa loo samaystay saraakiil soo kaxaysa waxa la rabaa dadka waa lagu fulinayaa marka arrimahaas aan ka gambanay laakiin waxaan idin sheegayaa ragga saraakiisha oo operationnada fulinayo dadka leynayaan garanaynaa wasaarad kasta afar qof oo daan jadiida oo ka timid Suudaan laga keenay oo meelahaas wax ku soo bartay oo diyaarsan baa wasaarad kasta la dhaxgeliyay maxkamadihii baa la qabsaday maxkamadii militariga lagu magacaabay oo wax dastuur oo u qoran jirana sharci loo samaystay waxaan markay anagu ka digaynaa oo ka xumaanaynaa war aan dawlad noqonay sharci darayaan taageerin oo sharciga aan xurmayno waayo dadku qariil waa ku heshiin karaan sharci bay heshiin karaan marka waxa weeye aniga qorshaha la ii dejiyay dilbu waxa dilkana waxa keenayay nala kuma haysto amni darro aan sameynayna qaliisha cadaniinayna oo aan toosinta ka wadnay ayaa nala ku haysta ciidamada booliiska inay shaqeeyaan oo hawshoodii qabsadaan baa loo diiday waad mahadsantahay sidaas baan rabaa inaan wax u kala qaadno sax waad mahadsantahay cabdi nuure ha kuu jawaabo qaasin hay qaasin bismillaahi rahmaani rahiim horta waa in badan baa ismaqiinay ilaa iyo dagaaladii USC iyo meel walba ismaqiinay ilaa hadda saan baan isnaqaanaa maalmihii arrintu ay dhacaysay 3 beri ka horna hoteelka ayaan isku aragnay sideeda waxaa jira dawladda qofkii markaas banaanka ka haddii uu caayo anigu ma qabo in la caayo dawladda waa wada leenahay ninkii markaas maaragtay madaxweyne ka ihina madaxweyne noo wada yahay cabdi marar uu hogaamiyayaasha kamid ahaadaa jirtay anigu waa kasoo horjeeday mana aanan caayi jirin in la iscaayo oo maaragtay maamulka markaas jira loo gafaana ma fiicna in wax la toosiyo aan noqono yaanaan caytabin yaanaan maaragtay jafin waqtigii berri asagu keeni karaa qofkanu keeni karaa anigu waxaan qabaa waxa weeye arrintan dawladda wadda dawladda hoggaan bay leedahay nin baa hogaamin lahaa ama anaa hogaamin lahaa ama mid aanan aqoon hadda baxsanayn baa hogaamin lahaa ama madaxweynaha hadeetaan hogaamiyaha haddaba la hogaaminaya aan dawladeeda ku kalsoona cabdi in badan buu soo shaqaynayay anigu waxaasu ahaa iyo saasuu ahaa iyo saasuu ahaa ma dhahayo waa walaalkay weeye aan hadda wax toosino hadda hubka dhigis baa la wadaa dawladdu xaq bay ku taagan tahay
hubka waa la aruurinayaa qof kastoo ku faraxala ka nax wax allaale wixii kale oo dadkan anigu waxaan ku gaabsanaya ayaa la gefin waa hagaag taariikhdaas xusi doonta dadka waa tahay labadiinaba waan idinku soo noqonaya waad mahadsantihiin aan xuseen carab ciise soo geliya xildhibaan baarlamaanka ka tirsan guddiga amnigana madaxu waa xuseen haye assalaamu calaykum waa mahadsantahay walaal runtii waxa weeye maaragtay qof kastaaba inuu ra'yigiisa cabiro laakiin aakhiritaanka kulli maxaa la rabaa runtii amniga gobolka banaadir iyo gobolada kale oo dhan in si sharciyeysan loo xakameeyo lana qabto taasi waxay ka bilaabmaysaa runtii wada shaqaynta shacabka iyo hay-adaha amniga iyo baarlamaanka si loo hubsado markaa policy guud oo lagu xakameynayo amniga taasi waxay ku imanaysaa in sida la sheegay si sharciyeysan hubka sida sharciga ugu jira gacmaha dadka aan maaragtay sharciyeysan hubka la guro dawladda ka gurto si maaragtay meel lagu ogyahay la geeyo sidii maaragtay security councilka lagula ballamay oo markaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya lagu wareejiyay bakhaarkooda marka waxaan qabaa anigu kamid kasta oo gobolka ku taalla in amnigeeda la sugo dan baa ugu jirta shacabka muqdisho iyo shacabka dalka oo dhan leanna muraayadda waa muqdisho weeye waa tii guddiga joogtada ee baarlamaanka loo sharaxay siday u dhacday insha allah markuu baarlamaanku soo noqdana waxyaabaha laga doodayay ugu horeeya waa shuruucdii maaragtay kahortaga argagixisada iyo hubka dhigista iyo programada maarata xasilinta maaragtay amniga gobolka iyo dalka oo dhan marka anagu runtii dhinaca aan ka egeyna haddaan baarlamaan nahay iyo guddiyada difaaca iyo amnigaba waxa weeye in tallaabadan la qaadayo ee lagu dejinayo magaalada oo runtii mid aada loogu bahan yahay qof shacab ah oo haddana awood dawladeed oo kale kule magaalada waa mushkilad bay ku tahay shacabka kale citizenka kale isku xuquuqda yihiin marka programkaas in magaranaysa iyadoo lasoo gehi la fuliyo waa laga daahiraad moodaa anu waxaan qabaa markaa in runtii hor loo sii wado isaga oo laakiin program runtii lasla wada ogyahay lasoo wada yahay waa tahay xuseen sidaad sheegtay guddiga joogtada golaha shacabku way taageereen howlgalkan marka si la eego laakiin haddana waxay soo jeediyeen in xukuumaddu ay dalkoo dhan ku fuliso siyaasadan xakamaynta hubka si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka oo halkaasi waxaa ka bidhaamaysa xasaasiyadda dadka qaarkood muqdisho ay ka qaadeen oo ay leeyihiin dad gaaraa la bartilmaameedsanaya in xakamayntan iyo howlgalkan la ballaariyo maxay kula tahay adiga saad sheegtay waa run annaga waxaan u taaganahay horta waxa weeye tallaabo kasta oo la qaadaa in tallaabo sharci ku salaysan dastuurka inay noqoto talabaad sida annaka loo sheegay waxa weeye meelaha la abaaraya waxay ahayd meelo lalahaa hub baa ku xaraysan ama bakhaaro hub weliba sharci darra ah ama lagu iibinayo taas waxaan umalaynaya qof kasta oo soomaaliyeed meel kasta uu joogo maaragtay in hubkaas dawladdu qabato laga hor iman maayo dadka la bartilmaamsanaya haddii jiraanna waxa weye runtii de waa in si sharciyeysan qofkaas loo soo qabta ama loogu taga laakiin haddii la tuhunsan yahay in meesha ama hub kheyr sharciga ku jiro ama laga ganacsanayo ama de awood weyn oo dawladda qofkii meesha ku leeyahay taa naftirkeedu waa waxay u baahan tahay wax laga qabto waa hagaag waad mahadsantahay xuseen carab xasan sheekh cali nuur baan soo gelinaya xasan dooda labada dhinac waad maqlaysaa afhayeenkii ciidanka bilayska iyo cabdinuur siyaad oo laba fikir oo kala duwan arrintan ka hay adiga maxay kula tahay si kooban aniga waxay la tahay in la isweydiiyo su-aasha ah dhibaatooyinka ka jira dalkan dhibaatada ugu horeysa maxay tahay dalkan waxaa ka jira dhibaatooyin aad u fara badan ka jira dhibaatada ugu horeysana waxay tahay waa dhibaatada nabadgelyada ayadana waxaa usii horeeya iyadana qaybo badan ka kooban tahay oo yani dhaqaalo xumida iyo shaqo la-aanta iyo heshiis la-aanta siyaasadda iyo waxyaaba badan ayaa jira oo keenaya nabadgelyo xumida hase yeeshee waxaa isha koowaad ay qabanaysaa ama marka hore isha ay qabanaysaa ama cadowga koowaad ee dalkaana uu leeyahay markay noqoto nabadgelyada waxay noqonaysaa qoriga ku jira gacanta dadweynaha ama qoriga ku jira gacan aan sharci ku hayn saas darteed caqliga saliimka ayaa wuxuu keenayaa iyo aragtida fiican waxay keenaysaa haddii la yareyn karo hubka ka baxsan gacanta dadweynaha gacanta dawladda in lagu soo celiyo gacanta dawladda sababtoo ah waxaa ku jirta danta dadweynaha ku jirta ama wada saxa in loo maro way tahay laakiin waxaa lama huraan ah haddii la doonayo guud ahaan soomaaliya muqdisho keliya maaha guud ahaan soomaaliya laano baraga yaala hargeysa caawa yaala berito wuxuu imaan karaa muqdisho kan muqdisho yaala berito wuxuu tegi karaa gaalkacyo kan gaalkacyana wuxuu tegi karaa garowe kalena wuxuu tegi karaa ismaaciil
marka qorigaas halka aaka unbaa wadalka ku wareegaya marka qorigaas inta la yareyn karo oo la xareyn karo in la xareeyo waxaa ku jirta danta dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waa hagaag waad mahadsantahay xasan. waxaan soo gelinayaa cabdinuure siyaad oo Gurceel jooga. cabdi sidaad sheegtayba imika waxaad joogtaa meel aad ka hadli kartid sidaad leedahay, laakiin haddii aan su-aalahan ku weydiiyo sababta adiga shakhsiyaadkaad ka mid ahayd loo bartilmaameedsanayay waxaa lagu sheegaa oo warar xitaa VOA ay heshay inaad adigu ka mid ahayd kooxo abaabulan oo magaalada Muqdisho ka jiray oo ay dhici kartaba xitaa dilalka qaarkood ee magaalada inaad lug ku lahaydeen ama ka dambayseen. maxaad arrintaa uga jawaabaysaa? dadka Soomaalida waxba uma kala qarsoona, waa dad ehel oo wada dhasho oo walaalo ah. dadka Muqdisho degana dad wada yaqaano weeye. qof kasta wuu garanayaa inaanan anigu wax abaabulan iyo waxba dilin jirin. waxaa keenayay naxariisiga siyaasadeed ee ah dhaliisha ee ah in maaragtay mas'uuliyadda dadka haya sida ay sharciga ugu tumanayaan. haddii waad maqlaysay Xuseen Carab Ciise sharciga hubka lagu qaadayay baarlamaankii sharci dejinta ahaa ma ansixin, asagoo ansixin bay ayagu qorshahooda iyo xildhibaanku markhaati buu iiga yahay inaan sharci uusan sharcigii diyaarsanayn. waayo qoryaha loo qaadaya, waayo dadka loo dilayaa. maxaq baan u lahaa in la iweeraro la idilo soo xaq maan lahay. 9 qori baan haystay, waa la ii sharciyeeyey, lama dhihin keen saacadii keen la yidhaahdo markii hore la ii sheegay markii loo baahdaa lagaa qaadaya. diyaar baan u ahaa inaan diido, maxaa in la idilo keenay? waxa wax dilayay ma ahan anigoo kale, ma ahan wax ka jiraa uma jiraan. waxa wax dilayay waa ciidanka isbedelka ah oo ruuxaanta oo qaabka siyaasadeed u diyaarsan oo yaryarka ah oo aan sharciyeysanayn oo macnaha kaliya ay garanayaan inay wax dilaan tahay. marka adigu ma waxaad leedahay shuqul kuma lahayn sinaba wararka sheegaya in aad qayb ka ahayd kooxo magaalada ka jira oo dee hubaysan oo hubna waad haysateene oo ay dhici karto mararka qaarkood inaad dilal ay ku lug lahaayeen? arrintaas ma lug kuma lahayn baad leedahay? waxba kama jiraan. waxa weeye maxaa loo soo caday? maxaa inta waa la baaraa, dawladdu waa tii wax baarta, booliisku waa inta la tago CID-da oo la baaro qofkii inta la ii yeero oo la baaro. maxaa dambi la igu soo cadayn waayo maxkamad la ii keeni waayo? ma jirtaa marka cabdi nuurow in dawladda aad la xiriirtay oo aad wada hadasheen oo adigu aad gorgortan gashood xitaa tiri haddii xil lay siiyo arrimahan aan ku lug leeyahay ama arrimaha laygu tuunsanayay way dhammaanayaan? waxba kama jiraan. weligay xilna kama doonan, mana oran, kalamana xisaabtamin. ra-iisul wasaarahan haddeer aan dhowr goor wuxuu igala hadlay see dalka wax loogu toosin karaa. waan u sharaxay, waxaan u sheegay dalku dhammaantiis inuu isku cudur hayo, isku cudurkaasna uu yahay dib heshiisiin u baahan yahay. marka dadka in la heshiisiyo, in hubkana looga qaado, dalkana loo dejiyo. waad mahadsantahay. aan soo geliya afhayeenka bilayska Qaasim Axmed Roble. Qaasim haye. bismillahi. arrintaas waxa weeye waa aruurinta ah oo dalka ka socota. ciidamada amniga way ka wada jiraan, ayaga ku wada jira, dawladda ka dambaysa, dalkay dan u tahay, ilmahay dan u tahay, future-kay dan u tahay. waan ognahay wadadii aan ka nimid. hay-adihii sharci dejinta oo dhan oo xildhibaanadii ay ugu horeeyaana raalliday ka yihiin, diyaar weeye. haddeer way maqlayaa wasiirka hore ahna xildhibaanka. intaasi waxaan raalli laga wada yahay oo ummadoo dhan ay ka dambayso oo dawladdu wado oo ciidamada nabadgelyadu ay wadaan weeye. waa hagaag. cid kasta waxaan maaragtay u sheegaynaa ciddii ku raaqonaysa iyo ciddii ka naxaysa qofku dan nooma aha. qofka ha layska keeno, si nabadgelyo ha lagu keeno. kii ku keeni waayana waa laga qaadaya. waa tahay. laakiin su-aasha dadku isweydiinayaan Qaasino waxay tahay magaalada Muqdisho xaaladda ka jirta dhinaca amniga waa la wada ogyahay. dadkan hubka haystana intooda badan waxay u haystaan inay amnigooda shakhsiyana ku ilaaliyaan. marka haddii hay-adihiinii amnigu aydan damaanad qaadi karayn dadka amnigoodii, sideed doonaysaa qofka inaad hubka uga qaadda haddii aanad amni isagii siinayn? cid kasta dawladdu arrintaa way ka fikirtay. dawladda arrintaa mas-uuliyadeeda qaadata. qofka waa la qiimeynayaa.
sidii amnigiisa loo sugi lahaa waa la qiimeynayaa, wixii ku filan oo huba waa la fiirinayaa. inta shirkadaha shaksiyaadka midkii maaragtay mas-uuliyad horey u hayay, midkii sharafsanaa oo la sarfayo, intaba dawladdu meel cidlaa ma uga tegayso. damaanad iyo hub loo sharciyeeyo iyo hubkoo lagu ogaado iyo arrimo fara badan baa yaala. dawladda ha loo tago, xafiisyada ku shaqadana ha loo tago, xafiisyada hana ogaadeen midkii nabadgelyadiisa u baqaya. dawladdu meel cidlaa dadka ma dhigayso, mas-uuliyadeedana ayadaa qaadaysa. biliis hubka hala aado, xafiisyada loogu talagalay hala tago. weli dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oonu toddobaadkana uga hadlayno howlgallada ay ciidamada soomaaliyeed ka wadaan magaalada muqdisho ee ay hubka sharci darrada magaalada uga ururinayaan. waxaan siinayaa xuseen carab ciise, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka. xuseen, waxaad sheegtay in xukuumaddu ay idinka wargelisay sida ay wax u wadaan. sida muuqatana shakhsiyaad iyo ganacsato iyo siyaasiyiin baa la bartilmaameedsanaya. xukuumaddu ma idiin sheegtay halista dadkani ay amniga magaalada muqdisho ku yihiin? horta waxa weeye haddii la rabo dawladnimo waa in loo hogaansamaa. runtii shuruucda imika for example hubka sharci darrada la wato weligiiba waa mid jiray weeye in maaragtay aan la ogolayn. ta labaad saad sheegtay adigaa mar dhawad ba sheegay waxa weeye sida lagu sugi karo amniga mararka qaar waxa weeye ninka shacabka ah adiga waxaa tiri qofkii haddii laga qaado hubkii amnigiisa ma la sugi karaa. waa in qofka kale wax ku yeelaya maaragtay hubka qofka kalena laga qaadaa sidii markaa dadkii si shacabka ah ay u noqdaan dad siman. taas waa mid. anaka sida naloogu sheegay markii warbixintana la siiyey waxay ahayd in programka hadda socdaa xataa aanu hubdhigintahayna uu yahay mid runtii meelaha lagu kaydiyo hubka sharci darrada ah ama laga shakisay laga ganacsado ama waxyaabaha noocaas lagu socday. programka saasuu ku bilaabay. waxaan u malaynayaa cid maanta oo in waxyaabaha magaalada muqdisho ay ka jiraan ma jirto. haddii markaa ay maaragtay wax soo raacaan inta dawladda marka ay wax ka qabato. kan kale ee ah in hubka la leeyahay sharci darrada ah xalla sharciyeeyo. si waxaan malaynayaa de taas qof kasta wuu ogol yahay. qof hor imanaya ma jirto in hub sharci darra alla wato. waxaan qabaa kulli waa ka midaysanahay in magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir runtii amni lagu soo celiyo. qof kasta oo shacabihi uu equal lagu noqdo magaalada salaan oo runtii dawladuna laakiin ay damaanad qaado ay tiraahdo annaka ayaa ka mas-uula qofkii qof kasta inaan amnigiisa sugno. waxaa laga rabaa degmo kasta inay iyaku maamuli karaan inay shacabka soomaalida qofka usoo sheega ama la shaqeeya hay-adaha amniga aan wax la yeeli karin. haddii wax la yeelana ay qaadaysa mas-uuliyadda dawladda soomaaliyeed hay-adaha amnigu. marka saasuu ku imanaya shacabkuna markaasuu kalsooni keenaya lana shaqeynaya hay-adaha amniga. waad mahadsantahay. anigu aan ka midoon kulligeen dhaqaalaha soo dibuscinta dhaqaalaha dalka oo dhan waxay ku xirahay banaadir gobolka banaadir oo ka bilaabanto runtii xasilin saxa. markaasay sodaysaa bahasho waa inay meel ka bilaabantaa. hataa marka la leeyahay soomaaliya o dhan laga dhigay programka waa hadal wanaagsan waana laga dhigayaa laakiin waa inay meel ka bilaabantaa. waa hagaag. waad mahadsantahay. waa caasimada oo soomaaliya o dhan runtii ay u siman tahay. xasan sheekh cali baan soo gelinaya. xasan, qorshahan hubka dhigistu waad ogeyd toddobaadkii lasoo dhaafay ciidamadu dagaal bay la galeen axmed daaci oo waad ogeyd dhimasho in ka badan 10 qof way dhimatay. maxaa keeni karay kula tahay in ciidamada ammaanku awooddaas xaddhaafka inay u isticmaalaan in hubka dhigis ay sameeyaan iyadoo ay dhici karto inay qofkii u digi karaan ama rasiin karaan inuu hubkii soo wareejiyo oo taasina ay baajin karto in dhimasho dhacdo? siyaasaddaasi maxaad ku macnayn kartaa? sida aragti ahaan waxay ila tahay haddaan u hadlo sida qof aqoon-yahana waxay ila tahay waxaa fiican inuu jiro policy guideline ama siyaasad qaran oo laysla og yahay iyo qaab loo fulinayo hawsha si loo yareeyo dhibaato inay ka dhacdo hawl la fulinayo labada dhinacba. ciidanka hawsha fulinaya in dib soo gaaro lama rabo. cidda hubka laga qaadanayo lama rabo in dib soo gaaro lama baahna. dadweynaha hareeraha ka degana lama rabo dhib inuu soo gaaro. marka asal ahaan diin muslimaa nahay. diinta islaamkuna waxay qabtaa dhibaato haddii la fulinayo inaan dhibaato ka weyn la geysan. diinta islaamkaa qabta. kadibna caqliga saliimkaa wuxuu qabaa adigoo doonaya inaad xumaati xumi ama dhibaato aad baadisid inaad midka kaweyn aadan keenin.
waad mahadsantahay xasan sheekh khadka igu jir cabdi nuuraan soo gelinaya. cabdi nuure, adigu iminka Guriceel baad joogtaa, Muqdishona waad ka tagtay, dadka la bartilmaameedsanayana waad ahayd. waxaa la ii sheegayaa inay jiraan ilaa liis ay ku qoran yihiin dhowr qof oo magaalada Muqdisho degan oo siyaasiyiin iyo ganacsataba leh oo ay ciidamada ammaanku la leeyahay way bartilmaameedsan doonaan, inkastoonan hubin wakhtiga, wararkaasna aanan si rasmi u xaqiijin karayn. ogaanta adigu iminka waxaad tiri waan hadli karaa bannaanka Muqdishoan jooga, yaa bartilmaameedsan Muqdisho intiinii asxaabta kula joogta? wallaahi aniga waxaan la socdaa dadka siyaasiyiinta iyo dadka ganacsatada oo dalka ka muuqda in la rabay in maaragtay si hoosta loo laayo markii siyaasadii ay ku fashilmeen oo wax u socon waayeen. inta kale madaxweynihii Ugandays baa waardiyeynaya oo asagii oo Ugandays waardiyeynaya madaxtooyadii ammaan ku waayay. annagoo siyaasiyiina ayaa marka nala bartilmaameedsanaya, dawladana bartilmaameedsanaysa. maxaa marka kalifaya? maxaa anaka in amniganaga yaa ballan qaadaya ilaa madaxweynaha amnigiisa asagii baaba sugi waayey. marka taas baana keenaysa shakigaas aan ku ognahay 65 way is wada garanaya. laakiin anigu inaan haddeer hebel iraahdo qof haddeer aan arsiinay aan shaki geliyo ma rabo. laakiin waa loo soo wada socdaa, anaa la igu hormariyey in la iqaarajiyaan la doonayo. waad mahadsantahay cabdi nuure siyaad. aan soo geliya afayeenka qaasim axmed. afayeen, waxaad sheegtay barnaamijka bilowgiisa in howlgalladani sii soconayaan oo aad hubka dhigisna ku samayn doontaan cid kastood u aragtaan in ay khalkhal amniga magaalada ku tahay. cabdi nuure oo magaalada iminka isagu ka baxsaday oo bannaanka jooga wuxuu leeyahay liis baa jira dad la bartilmaameedsanayo. maxaa ka jira arrimadaas? ciidanka nabadgelyadu cid gooni uu bartilmaameedsanayahay ma jiro. wax hadda soo gaaray oo aan ognahay oo cid gooni ay u bartilmaameedsanaysana ma ogin. walaalkay markhaatiga uu ii qabsanayana aniga markhaati xun la ima qabsado. waxaana ogeynaa waa ogahay ma dhahayo, waxaan ogahayna ma inkirayo, wax xumaana ma ogi. danta laga leeyahay in hubka la aruuriyana soomaalida oo dhan waa loo sheegay, haddana waan sheegay, hadaayakana waan sheegay. cid gooni loo bartilmaameedsanayaa ma jirto. ninkii markaas agsidan xoogaaya galaana haddii uu yidhaahdo hebel baa loo socday iyo hebel baa dantaas laga leeyahana waa arrin gooniya. anigu diyaar uma ihi inaan ka hadlo. waa tahay wax gooni loo bartilmaameedsanayo hubka dadka haya waa la wada ogyahay. meelaha lagu gado waa la yaqaanaa, dadkii gada waa la yaqaanaa, inta hub haysata waa la yaqaanaa. midka amniga loo haysto dawladdu way og tahay. dawlada cabdi iyo aniga iyo kulligaya nagana hindha badan, nagana shaqo badan. meel kastoo hubyaalo iyo qof kastoo hubhaya waa la ogyahay. hubka hub nabad oo nabad loo haysto dawladdu ay og tahay ma aha. hubka kale in la aruuriyo ayaa go-an. si nabadgelyo ah hubka loo wareejiyo sidii looga wareejin lahaa iyo sidii maaragta asna xafiiska ha u tago, ha la soo xaajoodo. ninkii loo doono dhibaato ku galaa wixii dhibaato ah asagaa mas-uuliyaddiisa. xuseen carab ciisaan soo gelinaya. xuseen carab ciise, xildhibaanka haye xildhibaan. horta runtii waa ku faraxsanahay. runtiina walaalkay Guriceel jooga cabdi waa ninaan naqaano nafaskaygu. in maanta ma garanaysa haddii problem yimaado la leeyahay maaragtay xildhibaanka ama baarlamaanku arrintaa ha soo dhex galo. waa run anaku xagga sharcigan ka dabagalayna. guddi baa la saaray for example isku dhafa oo amniga iyo difaaca iyo warfaafinta iyo xuquuqul insaanka ka kooban oo anaku baarlamaanka gooniya oo arrimaha dabagelaya. qof kasta oo shacbo maaragtay xuquuqdiisa wax loo dhiman anaku waa eegeynaa. xataa isaga uu kamid yahay. hadda arrintii maanta dhawey madiine ka dhacday oo kale haddii dadkii waa naloo yimi guddi baa noo ka socday halkaas oo dhibaatooyinkii kasoo gaxay halkaas noo sheegay. baaritaanna ku socda leanna waxaananu ku hubsanaynaa wax kastoo la qaado in aan maaragtay shacabka u dhibeen ay tahay wax ugu danaynayo. gabagabadii waxaan doonaya bal inaan xalka eego. aan aqoon-yahanka siiya xasan sheekh cali. sida ay wax ku socdaan iminka howlgalkan ciidamada dawladdu ay hubka uga dhigayaan hubka sharci darrada magaalada Muqdisho dadka haysta, maxay kula tahay adiga? maxaad u aragtid xal ahaan? doodan waa laga dooday oo dad
dadkii ka shaqaynaya amniga ama ha aadan xildhibaano ama ha aadan ciidamo ama ha aadan dad kaleeto oo siyaabo kale waad weydiisay laakiin marka anagu academic field ayaan ka dhimaaday marka sida dooda loo dhigaayo anaga waxaan rabnay inaan dhahno dhibaatadan maxaa keenay maxaa ka dhashay xal maxaa loo arki karaa laakiin qaabkaas iminka lama soo marino dad academic kale kama doodin dad iska caadiya oo muxtarisiin iyo askari waxbaa ka dooday si kastaba ahaato soomaalidu waxay tidhaahdaa habaar dhammaantiis waa dhimo duca dhammaanteedna waa noolow dalkaani wuxuu u baahan yahay hubka in laga aruuriyo gacmaha dadweynaha oo lagu xareeyo bakhaaradii uu ku jiri jiray intaan oodhabku gacmaha ka bixin taasaa lama horaan waa tahay waad mahadsantahay xasan sheekh cali hadalka dhinacaaga u dambeeya cabdi nuure siyaad oo gurceel jooga maxay kula tahay adiga xalka maxaad u aragtaa xalka waxaan u arkaa in la sameeyo sharci marka hore in dadka dib heshiisiin loo sameeyo dadkii oo heshiisa in loo sameeyo sharci hubka xakamaynaya oo dadka hubka looga qaado inay dawladay heshiis ku yihiin oo isku jecel yihiin oo lagu kalsoon yahay ay dhistaan laakiin maahan koox xukumboodu inay sharci iska samaysato oo macaal baarlamankii ayada doortay intay garab marto ay iyada iska fulsato marka midaan ka digayo waa midaas sharciga aan ku dhisnayn waa sharciga in la xurmeeyo oo qof kastoo soomaaliya wixii lagu heshiiyey inuu ilaaliyaa la rabaa midaas baana lalacya oo ilaa iyo hadeer mas-uuliyiinta dalku ay kari laayihiin inay xurmeeyaan sharcigii qornaa taas baan leeyahay marka war sharciga usoo noqdo oo ka jooga maaragtay duurxulka aad duurka ku ordaysid waa hagaag waad mahadsantay hadalka barnaamijka ugu dambeya waxaan siinayaa qaasim axmed rooble afhayeenka hay-adaha amniga ciidamada bilayska qaasim haye halka maxaad u aragtaa adigu halka waxaan u arkaa ummadda soomaaliyeed xalkeedu wuxuu ku jiraa qoriga in la aruuriyo qoriga in lagu celiyo meelihii loogu talagalay saqiir iyo kabiir mid dibad jira iyo mid dal jira iyo mid dal jooga iyo mid yar iyo mid weyn hooyo iyo aaba waxaa noodana in aan hubka xarayno ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa hooyada aabaha midka weyn midka yar jaamiciyiinta aqoon-yahanada dhalinyarada ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka ka codsanaynaa in xooga aan saarno oo hay-adaha amniga lagu gacan siiyo hubku inuu ku noqdo gacanta dawladda gacanta ciidamada nabadgelyada in lagu celiyo nabaduna sidaas noogu waarta iyo horumarku waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin asxaabta dhammaantiin intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaya barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkanna ku eegaynay howlgalka hubka dhigista ee ciidamada nabad sugidda dowladda soomaaliya ay ka wadaan magaalada muqdisho barnaamijka waxaa igala qayb gelayey qaasim axmed rooble afhayeenka hay-adaha amniga oo magaalada muqdisho ku sugan xuseen carab ciise oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya madaxna waa guddiga amniga ee baarlamaanka oo isna muqdisho ku sugan cabdi nuure siyaad oo ka mid ahaa hogaamiyaashii kooxaha muqdisho oo isaguna ku sugan gurceel iyo xasan sheekh cali nuur oo isaguna ah aqoon-yahan ku sugan magaalada muqdisho intaan guud ahaan barnaamijkan mid la mida dib u kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo